Assalaamu calaykum. Qisooyinka mahadhooyinka ah ee laga sheego dadkii la noolaa akhriska waa qisooyin ay adag tahay marar badan in uu rumaysto qof nool maanta oo nolosha dhalinyarada ay mashquulisay dagallada lagu kulmo. Qisada koobaad, caalimkii iyo sheekhii weynaa ee la odhan jiray Ibnu Taymiya ayaa xanuustay. Kadibna waxa uu dhakhtarkii ku yidhi, sheekh, akhriska iyo hadalkaaga cilmigu waxa uu kugu kordhinayaa xanuunka ee iska jooji oo u jixinjix naftaada iyo jawigeeda caafimaad. Caalimkii Ibnu Taymiya waxa uu ku yidhi doktorkii, uma dulqaadan karo aamuska akhris la'aanta ah, waxaanan kugula gartamayaa aqoontaada ee miyaanay haddii ay naftu faraxdo ahayn mid jir difaaciisa badinaysa oo xanuunka awood ay iskaga difaacdo yeelanaysa. Doktorkiina waxa uu ugu jawaabay, haa. Waxa uu ku yidhi sheekhii, haddaba anigu waxa aan ku farxaa aqoonta iyo akhriskeeda, markaas ayaana ay naftu awoodaysataa oo aan dareemaa raaxo iyo raynrayn. Doktorkii ayaa waxa uu ugu jawaabay sheekhii, arrinkan aad ka hadlaysaa waa uu ka baxsan yahay inta aanu ka naqaano aqoonta caafimaadka. Ibnu Taymiya isaga oo aan ahayn doktor ku xeel dheer cilmiga caafimaadka in uu la yimaado aqoon aanay haynin kuwii xilliga ku qaatay isla cilmiga caafimaadku kumay iman harkaa iyo labadiisa gelin hurdo iyo halalaasinimo adduun ee waxa ay ku timi akhris iyo soo jeed. Qisada labaad waxa weeye caalimkii weynaa ee Ibnu Qayyim al-Jawzi ayaa waxa uu yidhi, naftayda ayaan ka hadlayaaye kama daalo daalacashada iyo akhrinta kutubta. Haddii aan arko kitaab aanan hore u arag, waxa uu ila noqdaa sidii in aan gacanta ku dhigay dheeman ay helidiisu adag tahay. Waxa aan daalacday 20,000 oo kitaab, welina waxa aan ku jiraa cilmi doonkii iyo aqoon dalabkii, yacni ardaynimadii. Haddii aynu markii aynu qaadano bachelorka ugu horreysa ee weliba aynu imtixaankeeda ka qaybnay khulaasooyin yaryar, aynu isu naqaano dad wax nafci leh haya oo yaqaana, dadkii aynu aqoonta ka dhaxalnayna ay sidaa ahaayeen, sideeba ay suuragal ku tahay in aynu innaga iyo iyagu isku xaalad qofeed iyo mid qaraneed noqonno? Qisada saddexaad waxa weeye caalimkii weynaa ee caanka ku ahaa Ibnu Caqiil al-Hanbali oo naftiisa ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi, ima habboona in aan iska lumiyo 1 saacad oo cumrigayga ka mid ah, xataa haddii uu carabkaygu muraajaco dikri iyo dood xaq ah ka daalo, ishayduna ay akhriska tahli weydo, maskaxdayda ayaa aan gudliyaa, maankana waan tuujiyaa, mana soo hinqado oo jiifka kama soo kaco aniga oo wax igu soo dhacay qoraya mooyee wax kale. Aniga oo ku jira 10kii sano ee u ilaa 80 jir ayaan cilmiga waxa aan u hayaa dadaal aanan u haynin markii aan 20 jirka ahaa. Qisada afraad waxa weeye caalimkii weynaa ee Sakhaawi ayaa waxa uu ka sheekeeyey Axmed Suleymaan al-Bulqaasi. Markaas ayaa waxa uu yidhi, waxa uu ahaa caalim aad u jecel baadhitaanka akhriska aan ka go'in aqoon kororsiga. Waxa uu kutubta daalacan jiray xataa marka uu soconayo. Qiraa'ooyinka qur'aanka ayaa uu akhriyi jiray marka uu cuntada cunayo, isaga oo ka cabsi qaba in uu xilligu ka lumo. Inta aynu ku kulmi doonno muuqaal kale oo xiiso badan, waa Sakariya Haruuni oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.